inta badan dalalka caalamka islaamka oo Soomaaliya ka mid tahay ayaa maanta si weyn looga ciiday munaasabada Ciidul Fitriga. magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya ayaa maanta laga dareemayay fantasiyaha iyo dabaaldega munaasabada Ciidul Fitriga oo maanta ay ahayd maalinta koowaad ee Ciidul Fitriga. dadweyne aad u fara badan ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho kuwaas oo u dabaaldegayay munaasabada Ciidul Fitriga, iyadoo sidoo kale fagaarayaasha iyo qaar ka mid ah masaajidda waaweyn ee magaalada Muqdisho maanta ay lagu dukaday salaada ciida. hoyga Banaadir TV ayaa maanta waxa uu booqday deegaanka Dar es Salaam oo ka mid ah goobaha aadka u quruxda badan isla markaana maanta ay dad aad u fara badan isugu tageen kuwaas oo u dabaaldegayay munaasabada ciida, iyadoo sidoo kale wadooyinka iyo xaafadaha deegaankaasna ay ahaayeen kuwo aad saxmad u ah. wasiiro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan haweenka, caruurta iyo dhalinyarada oo hoyga Banaadir TV uu la kulmay ayaa waxa ay munaasabada Ciidul Fitriga awgeed waxa ay hambalyo iyo salaan u direen guud ahaan shucuubta islaamka gaar ahaan shacbiga Soomaaliyeed ee muslimka ah iyo eheladooda iyo qaraabadooda ayagoo markaasi ugu hambalyeynayay munaasabada Ciidul Fitriga. guud ahaan kuwa jooga dalka iyo kuwa jooga dibaddaba waxaan leeyahay maanta waa maalin weyn, ummadda islaamka ku weyn, farxad ah, ciid ah, muujinaysa runtii meesha aan hadda joogno barxaddan weynta ah ee kumaanka kun ee qof ee hooyooyinka Soomaaliyeed, gabdhaha Soomaaliyeed, carruurta Soomaaliyeed, ajaanibta, ganacsatada, wasiirada, xildhibaanada gobolka Banaadir iyo runtii oday dhaqameedyadaba ay iskugu yimaadeen inay la qaybsadaan farxadda ummadda Soomaaliyeed ee maalinta ciidda ah. waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan runtii uga mahadnaqo si iskugu duuban yihiin saan ku soo gaarnay halkan. meel fog baa laga yimaaday, haddana waxaan joognaa Dar es Salaam anagoo wasiir ah, waxaan kumaan kun oo shacab oo aan la soo baarinna aan la tukanayno. amniga wuxuu ku yimaadaa rabitaanka shacabka, kuma yimaado quwad iyo awood. shacabka ayaa awoodda ummadda Soomaaliyeed ah. waxaan leeyahay ciidan waxaad tusteen ummadda iyo adduunkaba in ay tahay soo Muqdisho magaalo amniya. Dar es Salaam magaalada la yiraahdo macnaheedu waxa weeye waa gurigii nabadda. nabaddana waa waxa aan ugu baahi badannahay, marka nabaddaas in la ilaaliyo insha Allah taala. inteena halkan isugu timid iyo reer Dar es Salaam munaasabada ciidda waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu Ilaahay nagu kulmiyo Dar es Salaam. إلهي بلنكي سوحا أي هيد لهم دار السلام عند ربهم تاسوا جندي نبدأ عن هالكان كسمينو أيام وحلتقينا إن شاء الله تعالى هدي إلهي يرادو دارتي نبدأ أما ماشي نبدأ أما قوبتي نبدأ إلهي سبحانه وتعالى نوبلن قاضي ودار السلام إلهي وحويري لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم اليوم بما كانوا يعملون. الحمد لله. مقاعيد وحواي محمد عبد الكريم محمد ديانك دار السلام كنول ديانك دقن. الحمد لله ما أنت سوى ناكسن أيا لو عيدي ديانك دار السلام. الحمد لله هذا وفرح سنة هاي أنا ما هل كان سقيب قشين أو صبغتان حواي وسدويننا هذا كان قاعد فرق سدوال مركزتا عيد وناكسن عيد لمدة. الحين مقعيد حواي حمسن نور داهر وكسر جود ودن كل كينيا إنتنا وحنكون ولا هاي وغيران هذه 6 سنة إلى لو كنا 20 كيلو بدن جوجي ما شاء الله مسلمين تدم حليه عيد مبارك. wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale maanta waxay ahaayeen kuwo aad saxmad u ah, waxaana lagu arkayay dad aad u fara badan oo isugu jira rag, haween iyo caruur kuwaas oo u dabaaldegayay munaasabada Ciidul Fitriga, waxayna ay dadka isugu hambalyeynayeen munaasabada ciida.
timaada maanta